kelmadeeda dardaaranka ah waxay tahay gabdhow taariikhdu waxbay qortaa waxbay sareebtaa in raadkayaga idinka yaryarka da'yarta aad noqotaan kuwii bari tusaalihii shalay naga maqnaa kuwa lagaga daydo oo horumariya inaan noqotaan waxa madaxa igaga dhigay maalin walba markaan TV-da ka arki jiray gurigii aan deganaa baydhabo oo 6 sano deganaa oo carruurtayda cusbitaalka ku dhalatay oo meydku saa u jiifo oo marka carruurtayda u sheegay inay halka ku dhasheen gurigoodu ka ahaa ay oohin qabsadeen markaas taas baa madaxayga aan seexan waayo hurdadii ii diiday oo igu dhalisay adeeso iyo in wixii igu dhashay baa adeeso keenay ha idinku dhalato inaad naftiina u hiilisaan waxaan isku sharaxnay mid kalena in aanu madaxweyne isku sharaxo madaxweyne markaa isku sharaxay waa ogaa inaan cidna madaxweyne gabar markaa siineen waa ogaan xaaladdu inay iska adkay wax kasta waa ogaan laakiin waxaan rabnay inaan ku bedelano maxay waxaan ku bedelanayna waxaan rabnay in la helo wasaarad u gaar ah haweenka u gaar in la helo maanta hablaha halka fadhiyo wada jaamiciin waxay noo tahay inaga maxay hayday inspiration and motivation aad bay maanta igu weyn tahay waxaan u arkaa in ay tahay maalin la kala faa'iideysanayo loona faa'iideysanayo bal meesha dumarku jooga maanta caqabadaha yaala iyo sidii looga bixi lahaa caqabadahaas oo dhan muhiimadda ugu weyn oo uu leeyahay waxa weeye in gabdhaha dhalinyarada ah loo abuuro fursad ay kula kulmi karaan dumarka khibradda leh qofna ma jecla inta soo shaqeeyay in isagoo isbidaya inuu khibrad leeyahay khibradii la dhinto runtii waxaan rabnay inaan uga hadalno waay aragnimadii iyo soo jireenkii iyo waxyaabaha sida ay maaragtay hogaamintooda u hagaajin lahaayeen